السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدبادة أكشن waxay aad iyo aad halkan ay uga mahad celinaysaa Allah subhanahu wa ta'ala nimcada inoo shubay ilaahay waxaan ka baryaynaa nusqaanteeda inuu naga hayo maanta Hargeysa waa rooban tahay roob baa ka daaya xilliyadan kale badan roob muddo jirin xilliga duhurka laakiin nimcooyinka ilaahay weeye waxa daba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay ilaa xilli ma inta roobku saa inoogu da'o ayay biyahani ina dhaafayaan meel aan loo baahnayn ku shumayaan waxa iska caado ah oo aynu iska naqaanaa in waddankeenu abaaruhu soo noqdaan abaarahaasina ay yihiin shayga xoolaheenna iyo dhaqaalaheena oo naafeeya oo markastoo abaar timaadaba dhaqaale badan bay ku weynaa xoolo badan baa inaga baxaa sidii biyaha looga faa'iideysan lahaa wasaaradda macaantii biyaha hay'adda qorshaynta qaranka hay'adaha kala duwan kuwa ku shaqeeya arrimaha deegaanka waxaan iyo shacabka reer Somaliland waxaan ku dhiirinayaa ama aan halkan fariin uga farayaa inay biyahan qorshe cad laga yeesho oo horumarka qaranka siyaasad cad oo buuxda oo laga leeyahay lagu daro su'aasha kale markaa maanta iyaduna isweydiinteedu waxa weeyaan maxaa uga qorshaysan golihii deegaanka cusbaa biyahan iyo laamidan isdhex socda maxaa uga qorshaysan iyaduna waa su'aal waxaan iminka bartan ku arkay mar dhaweyto dadkii oo biyahan soconaya laamida maraya soo raacinaya qashinka oo aad moodaba inaanay dadkani muwaadiniin ahayn muwaadinimadu waxa ka bilaabmataa naftaada iyo deegaankaada aad ku nooshay feerasti waa arrin aad looga xumaado halka waxaan idinku tusaa kiliba yar oo muujinaya sida qashkaas biyo dhex marayo oo halkaan idin kula wadaagayo waa kan qashkii waa la soo raaciyay waxana waa qashin waxa weeyaan waxa la soo raaciyay daadka waa la soo raaciyay waa qashkii halkaas u yaala waa la soo raaciyay waana arrin musiibo ah ilaa xad walaal deegaanka waxaan farayaa in ay biyaha iyo wadadan kala qabtaan oo iyada la fiirsi bilicda caasimada loo hagaajiyo aad iyo aadna waan uga xumahay in muwaadiniintu laamida iska lahayo dhulka iska lahayo